saraakiil ciidanka booliska dawladda federaalka Soomaaliya oo geeka kulan iska kooyeen magaalada Muqdisho caasimada qaranka iyo lan ku hadalay arrimo dhowr oo ku saabsan dhacdadii shalay ka dhigay inta dhaxayta Muqdisho afgooye kulankan ayaa ku qayb galeen saraakiil iyo wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la ka hadal qaaday dhacdadii shalay ka dhigay deegaanka Hawa Cabdi oo ka taal inta dhaxayta Muqdisho afgooye Cabdullaahi Xasan Bariis oo ku tirsan saraakiil ciidanka booliska Soomaaliya oo ku warbi saxaafadda ujeedada kulankan ay waxyaabaha lan ku hadalay anigoo ku hadlaya magaca wasiirka amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan tacsi tiiraanyada halkan uga diraynaa dadkii masaakiinta ah waxba galabsan sida baan loogu xasuuqay jidka dheer u dhaxeeya xamar iyo afgooye gaar ahaan inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo isbitaalka Hawa Cabdi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun naf kasta way dhadhaminaysaa meydka hase yeeshee waa geeri xanuun badan waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed eheldoodii iyo qaraabadoodii ay ka tageen ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu jannatul firdaws ka waraabsho intaas kadib waxaa maanta dad arxaan aan lahayn oo ah dadka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya ay ku dileen shaqaale u shaqaynayay Ukraine Pro Service hay'ad la yiraahdo oo nadiifinaya jidka u dhaxaysa sidaan horaba ku soo sheegay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo isbitaalka Hawa Cabdi shaqaalahaas wuxuu ka koobnaa 38 qofood waxaa markii hore goobta ku dhintay 8 qof sidaan hadda warka ku helnana waxaa gadaal ka dhintay 1 qof dhimashada halkaas ka dhacday waa 9 muwaadin oo shaqaale u ahaa hay'adaas arrintaas isla markayna soo gaartay baaris degdegaha muxuu ahay la qaaday waxaa la soo ogaaday meydadkiina muxuu ahay waxaa la geeyey isbitaalada wax hadda dhaawac ah oo welina soo gaara ma jiraan baaristiina hadda si xawliya u socotaa waxaad ka dareemi kartiin xilliga aan taaganahay halkan waa CID hogaanka baarista dambiyada booliska waxaa dhinacyada iga taagan wasiirka amniga qaranka iyo taliyaha ciidanka booliska waxaa halkan loo taagan yahay in arrinta dagar qabayaasha kiiskaas geystay si degdeg ah muxuu ahay baaris laga daba tago haddii rabbiga awoodda la ogolaado gacantana lagu soo dhigo ma filayo inay muxuu ahay arrintaasu gaabino ka imaanayso haddii rabbiga awoodda la ogolaado saacana joognana baaristu waa noo socotaa natiijadana haddii rabbiga awoodda la ogolaado shacabkeenna aan jecelnahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa la wadaagi doonaa waqtigeeda lagu soo foolay haddii Allah awoodda la ogolaado waa mahadsantihiin shalay hay'adda markiisi arrintoore ay Ingleeyaan kooxda maleeshiyada Al-Shabaab shacbiga ku suganayaan inta dhaxayta Muqdisho afgooye Ibraahim Cali TV-ga caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo